marka haddaan Soomaalinaanay waxaanan dad isla qabweyn laakiin qabweyninkooda waxba aan ka dambeeynin oo eber ah oo gaajo iyo rafaad islaac ka dambayso marka ani camal tahay salahan oo adoo ciyaar xaafada Soomaaliya iskaga tagtay oo qurba iska aaday xaq wax ku soo bartay jawiga iska soo bedelatay oo aad muddo badan meesha waqtiga ku soo qaadatay waxa aaminaysaa in baahida Soomaaliya ka jirto aysan adiga familkaaga aysan saameynin laakiin waxa ku sheegay waxay tahay maanta baahida Soomaaliya ka jirto inay gaartay level ah qof walba oo Soomaali ah qof kamid ah ehelkiisa dhow hadii ahayd aabiis hooyadiis walaalkiis abtigiis adeerkiis awowgiis qof kamid ah ehelkiisa dhow inuu maanta oo gurigiisa waxba dab ka shidnaan oo lacagta maanta oo $10 oo aad maanta qado ku cunaysid in oo maanta hadii qof kamid ah ehelkaaga dhow oo hel lahaa isbuuc dhan nolol farxad leh oo ku nool lahaa oo dabkiisa u shid lahaa macnaha marka waxaan dad xaqiiqadaas oo jirto iska indhatiraayo aan ku siraacay intaas waxa ka soo jeednaa wadan 5 milyan ka badan oo dadkiisa ah oo ay maanta heli la biyo oo rafaada sida ay biyo ku heli lahaayeen maanta ay cabi lahaayeen macnaha qaarkood ay u dhimanayaan biyo darteed wadankeena dad malaayiin ah baa maanta u dhimanaya biyo aysan cabin aysan haysanin bay u dhimanayaan maanta dadka aan la noolnahay anaga wayna ogyihiin taariikhdeena way ka warhayaan meeshan ka soo jeedinay qaabka u noolnahay iyo waxa dhan way ka warhayaan in dadkooda ay dadkeena ay maanta ay u dhimanayaan biilaan darteeda meel intaas ka weyn oo wadan qof ka soo jeedi karo oo ka background xun ma jirto in dadkaaga laga yaabo ehelkaada dhow qof kamid ah maanta inuusan haysanin biyo oo cabo oo adigana maanta aad qabweynin aad la soo taagantahay meesha oo aad sinayso marka waxyaabaha qofka bilaadinka inuu ka xishoodo u baahan yahay kamid tahay marka dadka noocaas camal waxa ugu la tali lahaa haddii aysan dadkooda inay caawiyaan aysan rabin oo ay garab istaagaan aysan rabin ummadda kale ee generationka ah ee qurbahan ku nool ee intooda badan maskaxdooda hadda inta badan la tirtiray in aysan ugu sii darin in ay ra'yiga xun ay haystaan ay raacaan macnaha oo ay dadkoodii ay caawin lahaayeen aysan ka hor istaagin inay caawiyaan macnaha